السلام عليكم صاحبي halkani waa Caasim Media ku soo dhawaada muuqaal cusub muuqaalkani ayaa waxa uu ku saabsan yahay qiso jecel oo aad u xanuun badan qisadani ayaa waxa ay ka dhacday qurbaha ku soo dhawow qaybta koowaad ee qisada balse intaan u gudagalin daawade waxaan ka codsanayaa inaad like saarto muuqaalkan haddii aad channelka cusub tahay nagu soo biir oo subscribe dhee channelka furo gambalelka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada isla markaa aynu soo gelino muuqaaladeena Faiso waa gabar Soomaaliyeed waxayna ku dhalatay Soomaaliya inta kadib Faiso reerkeeda waxay qaxooti ku noqdeen Kenya Faiso waxay ku nooleed muddo qaxootiga Kenya Faiso markay jirtay 18 sano waxa loo sameeyay kaarka lagu dhoofo oo ayada u gooni ah waxaase laga saaray kaarka ehelkeeda oo ay kula jirtay walaalaheed waxay aadeen Yurub muddo yar kadib Faiso waxay u soo dhooftay dalka Mareykanka waxa ayna tagtay gobol ay Soomaalida ku yar tahay markay muddo yar Mareykanka joogtay baa Faiso waxa ka helay wiil magaciisa la yiraahdo Faisal Faiso waxay ahayd gabar dheer oo cad oo qusul qurxoon leh diin iyo dabeecad alla ku maneystay Faiso alla wuxuu siiyay akhlaaq iyo dabeecad wanaagsan wiilkii arkaba wuxuu ku qancayay dabeecadeeda iyo diinteeda Faisal wuxuu ahaa wiil jaamacad dhameeyay wuxuuna haystay shaqo wanaagsan sidoo kale wuxuu ahaa wiil furfuran ehelkiisana u wanaagsan Faisal muddo badan wuxuu ahaa wiil raadinayay gabar qancisa ilaa heer uu go'aansaday in uu wadamo kale u doonto balse nasiib wanaag Faisal markuu arkay Faiso wuxuu la dhacay deganaanshaheeda iyo quruxdeeda Faisal si wanaagsan buu wuxuu ugu codsaday Faiso in uu la sheekaysto ayadana ma aysan diidin oo waa ay ka ogolaatay codsigiisii Faiso xilliga waxa ay la deganeed qoys ay isku barteen Kenya hase yeeshee Faisal waxa uu u qaatay Faiso in ay la nooshahay qoyskeeda Faiso marnaba uma aysan sheegin Faisal ehelkeeda iyo qabiilkeeda maxaa yeelay Faiso waxa ay ka dhalatay qabiil heeb sooco inta kadib Faisal gabadhii aad buu u jeclaaday ilaa heer wuxuu gaaray in uu seexan waayo asigoon codkeedii maqlin Faisal mar walba uu tukado waxa uu ku duceysan jiray Faiso allana wuxuu ka bari jiray inuu calaf ugu daro sidoo kale waxa uu u gadi jiray hadiido asagoo dhowr mar hadiido u keeni jiray oo ay ka mid tahay silsilad dahab ah oo ugu dalbay Dubai Faisal mar walba wuxuu daneynayay inuu arko farxadeeda iyo qosolkeeda wuxuu Faiso ka ilaalin jiray in ay murugoto maxaa yeelay jaceylka uu qabo baa aad u weynaa alla jaceyl xanuun badana haddii xanuunsato ma uusan seexan jirin ilaa uu ka hubsado xaaladeeda sidoo kale Faiso waxay jeclaatay Faisal jaceylkeedu wuxuu ahaa jaceyl xad dhaaf ah oo weligeed aan soo marin maxaa yeelay Faisal wuxuu ahaa wiil dareensiiyay naxariis kalgacal sidoo kale waxa uu tusay kalsooni aad u weyn Faiso marnaba reerkeed wax uma baahan oo booskii reerkeeda waxa uu buuxiyay Faisal maxaa yeelay waqti walba iyo wax walba ay u baahato Faisal bay ka heli jirtay inta kadib Faisal Faiso wuxuu ka codsaday in uu guursado Faiso arintaasi waxa ay ku noqotay mid lama filaan ah kadibna waxa ay ka codsatay in uu siiyo waqti ay ku soo fikirto maalmo kadib waxa ay ku fikirtay in ay u sheegto ehelka ay ka soo jeedo inta aysan ogolaanin guurkiisa ka hor balse jaceylka ay u qabto baa ka tambadiyay inta kadib Faiso waxay go'aansatay in aysan u sheegin qabiilkeeda iyadoo ka cararayso in uu dhaawac soo gaaro jaceylkeeda Faisalna mar walba wuxuu kula kaftami jiray qabiilka uu u qaatay in ay tahay Faiso qabiilkaasi waxa ahaa qoyskii ay la deganeed Faiso ee ayada ma aysan ahayn inta waxa ku eg qaybta koowaad ee qisada la soo qaybta xigta hadduu Rabbi dhaho daawad haddii aad ka heshay qisadani fadlan muuqaalka laag inoo saar haddii aad channelka cusub tahayna nagu soo biir oo subscribe dheh furo gambalelka si aad u hesho isla marka aynu soo gelino qaybta xigta tani intaan ku kulmayna qaybta labaad nabadgelyo